ciidanka qalabka sida ee fadhigoodu yahay gobolka Togdheer ayaa u dabaaldegay sanad guuradii 26aad ee ka soo wareegtay markii la aasaasay ciidamada qalabka sida ee Somaliland waxayna soo bandhigeen dowlatus military oo laga dheehan karo xuduudda ciidan iyo sida ay ugu heelan yihiin difaaca dalka ugu horreynba waxa munaasabadaasi ka hadlay gaashaanle sare Maxamed Abakor madaxa ciidamada qalabka sida ee fadhigoodu yahay gobolkani Togdheer iyo sidoo kale abaanduulaha qaybta 12aad ee ciidanka Kayd Cismaan antana waxa uu aasaasa oo uu jira qaranka ugu jira waxa weeye kaalinta koowaad wala badi fiisa ciidanka qaranka laba tafsiri karo hawsha uu hayo adag gudaha iyo dibadda cadow gudaha iyo dibadda intaba waxa weeye waa xasladay ciidanka qaranku waa hay'adda ugu xoogga badan jamhuuriyadda Somaliland ciidanka qaranku wuxuu ka hawlgalaa dhammaan waddanka gudihiisa meel kasta oo joogo kuma eega ciidanka qaranku difaaca qaranka oo kaliya ciidanka qaranku wuxuu ka hawlgalaa dhammaan nabadgelyada oo dhan meel kasta oo dalka gudihiisa oo nabadgelyo darro ka jirto ciidanka qaranku ka hawlgalaa taliyaha ciidanka bilayska gobolka Togdheer Cali Maxamed Faarax maayirka degmada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraade iyo barasaabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi ayaa iyaguna guud ahaanba ciidanka qalabka sida u diray hambalyo ilaahay waxaan ugu barayaa subxaanahu wa ta'ala dhammaan ciidanka qaranka xaasaskooda carruurtooda iyo nafahooda in ilaahay subxaanahu wa ta'ala barakeeyo sharaf ay ku noolaadaan cizi ay ku noolaadaan inta nolosha uga hadhay kor loo eego aan hoos loo eegin oon leeyahay u adkaysta oo ilaaliya u adkaysta oo jira u adkaysta oo ilaaliya u adkaysta oo u dhinta u adkaysta oo ilaashada tan xaq iyo xuquuq baad ku leedihiin ilaahay baana idinka abaalmarin doonee waxaan leeyahay halgankaad ku jirtaan sii wada oo ha ka daalinaad ilaahay maantana ay sanadkii 26aad gaadheen oo dee aynu odhan karno laba jeer qaangaarkii waxaa weliban 4 sannadood muddada ay ciidanka qaranku soo dhisnaayeen runtii waxa ay qarankan u soo qabteen waxyaabo badan oo muhiim ah oo ay koob u tahay sugista iyo ilaalinta xuduudda jamhuuriyadda Somaliland ay la wadaagto ayaan le Cabdullaahi Jaamac warbaahinta caalamiga ee SBC magaalada Burco.